عمر بن الخطاب وقتي أمير المؤمنين كهابو هبينكي انتو نينكا حيستو أيو حسومري جري حافظها يددك وحيقي جري بل عد عبانيسا وحدي بو جرا كورمير هبين بصوص صعدي دبتنا وحو مغلي حافظ إنان إيو هو يدد ولا هضليا سلانتا waxay tiri nacaanihi biya ma ku dartay ani suuqa aroorta la geynayay ay salaatu rabtaa in la badxo biya lagu daro markaasay inanta waxay tiri hooyo Umar baa mamnuucay oo yiri lama ogola caanaha in biya lagu daro islaantii baa waxay tiri in amiirul mu'miniina la yaraka الآن أمير المؤمنين كده هذا كوارك ما يتريش شغله هنا قبو أمير المؤمنين كده هنا أرك ما شغله قبو بيتري إن أنت ما وحي تري إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا هذان مدحوينه إن أركينين أمير المؤمنين كالرب يجيب إن أرك يا بيتري إلهي بين أركيا سيدا أوجد مصور تقلا بيتري inaan markuu amiirul muuminiinku ama ilaahay marka dadku joogaana inaan ateeco markaan kali u baxana inaan caasiya suurtagal ma marka dadku ay arkayaan inaan ilaahay ka cabsado aanan caana badxin marka aan gaar u baxana inaan wax badxa suurtagal ma haydaadaan Umar baa guriga albaabkiisa buu calaamadiyay dabeetana waraysi buu doonay wareerkaasi waa kuwama reerkii baa loo sheegay inantii baa looga warramay inanta miyaa la qabaa may inamadiisiiba isugu yeedhay deetana wuxuu yidhi waryaadhe anigu nin weynoo da-aan oo hadda dumar warkood ma hadal haya laakiin haddaa cid un guursanaysaan reerkaa inanta joogtaa waa inaan ilaahay ka cabsanaysee wararda taa guursada inamadiisii mid ka mida baa guursaday waxay yidhahdaan waa cidduu ka tafiirmay bay yidhahdaan Cumar bin Cabdilcaziis amiirulmu'miniinkii cadaaladda badnaa ee iyaga ka dambeeyey waa tafiirtii gabadhaa yar baa la yidhahdaa oo habeenkaa dhegaysanayey Cumar bin Khataab waxaynu uga dan leenahay haddii uu qofku ilaahay cabsidiisa ku waaweynaato oo uu cibaadadiisa ixsaan ula yimaado cibaadadaasi waxay keensanaysaa inay